waqooyi bari Soomaaliya waa guushii federaaleynta dalka. waxaa doorka weyn ku leh waqooyi bari dhismaheeda Cali Xoosh oo la ayn in la soo qaado ninka salka u dhigay weeye. dowladda federaalka Soomaaliya waxay saldhig u tahay dhageysiga codka shacabka, ixtiraamka doorashada dadka deegaanka iyo tixgelinta rabitaanka siyaasadeed ee ku aadan ayaka tashiga. tani waa sheekada dhismaha dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya. geedi socod ka dhashay rabitaan bulsho, hoggaan qaran iyo hirgelin dhab ah ee federaalka. wejiga koowaad ee rabitaanka shacabka shantii bishii Janaayo sannadkii 2023 si looga baxo hubanti la'aanta iyo matalaad la'aanta siyaasadeed islamarkaasina loo midho dhaliyo doonista dadka ayaa waxaa la dhisay guddi ayaka tashiga SSC Khaatumo oo ka kooban 33 xubnood. tallaabadani waxay ahayd fariin siyaasadeed oo cad kuna muujisay jihada iyo go'aanka shacabka deegaanka. ilaahay maadiyan ka gaadhay horta 33 nin waa isdhaafsadeen oo dhaar bay ismariyeen inaan dad maanta la khayaamayn dadka maamula la kala raacin noocu doonaha ahaado. 6dii bishii Febraayo sannadkii 2023 isimada dhaqanka ayaa soo saaray bayaanka laasacaan oo ah go'aan rasmi ah oo sharciyeeyay hannaankaasi. waxaa magaalada laascaano 28 bishii koowaad 2023 oo soconayo ilaa maanta oo bishu 6 tahay shir weyne ay aayahooda kaga tashanayaan isugu yimid dhammaan isimada, uqaasha, culimada, aqoon-yahanka, haweenka, dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wadahadal dheer iyo falanqayn qoto dheer ka bacdi waxaan caddaynaynaa deegaanada SSC Khaatumo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin dadweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. halka 28 bishii Febraayo 2023 dowladda federaalka Soomaaliya ay si rasmi ugu dhawaaqday in la tixgeliyo rabitaanka shacabka islamarkaasina ay taageertay bayaanka isimada. sidaasi ayuu ku hanaqaaday maamulka ku-meelgaarka ah oo leh ahdi 2 sano ah kana shaqeeyey dejinta aasaaska dowladnimo. marxaladdaasi markii ay muddaxileedkii dhammaysatay waxaa timid baahida wejiga labaad ee geedi socodka dhammaystirka dowlad goboleedka ayna dhismihiisa hoggaaminayso dowladda federaalka Soomaaliya. ujeedka marxaladdan ayaa ahaa in la dhammaystiro dowlad goboleed xubin ka noqda dowladda federaalka rasmi ah, leh dastuur, sharciyad qaran, habraacad iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay kuna dhisan wadar ogol. iyadoo laga duulayo hagidda madaxweynaha xukuumadda federaalka ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxay guda gashay geedi socodka lagu ballaarinayo awoodda federaalka laguna soo kordhinayo dowlad goboleed cusub. waana tallaabo muujinaysa in federaalku uusan ahayn hal ku dhig balse uu yahay xaqiiqo shaqaynaysa. 12 bishii Abriil 2025 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa booqasho taariikhi ah ku tegey magaalada Laascaano. safarkii ugu horreeyay ee ra'iisul wasaare Soomaaliyeed halkaasi ku tago. booqashadan waxay astaan u ahayd mas'uuliyadda dowladda federaalka ee ilaalinta rabitaanka shacabka iyo ka go'naanshaha midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. 2 maalmood kadib dowladdu waxay soo saartay warmurtiyeed rasmi ah oo lagu shaaciyey in dowladda federaalka ay hoggaaminayso dhammaystirka maamulka, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta loo xilsaaray hannaankaasi. wasaaradda arrimaha gudaha waxay go'aamisay goobta iyo taariikhda shirweynaha dhammaystirka, dhistayna guddi farsamo, iyadoo 10 bishii Luulyo 2025 uu wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh uu si rasmi ah u gaaray Laascaano. halkaasi uu ka bilaabay wadatashiyo ballaaran iyo dejinta qorshaha kama dambaysta. shacabka SSC Khaatumo oo aan u rajaynayno guul iyo wanaag oo dhan
aanuna u niibi dhammaystirka maamulka dowlad goboleedka khaatumo aad iyo aad sida aan sheegnay udubdhaxaadka geedi socodkan waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane cali yuusuf cali xoosh oo muddo ku dhow 2 bilood deganaa Laasacaano hoggaamintiisa wadatashyadiisa joogtada ah ee uu la yeeshay mas'uuliyiinta simada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo doorkiisa isu soo dhoweynta saamileyda waxa ay ka dhigeen hanaalmida oo Soomaali hoggaaminayso loo dhayahay isla markaasina miro dhalay intii u dhaxaysay Luulyo ilaa iyo Agoosto 2025 waxaa la dhamaystiray qaab dhismeedka dowlad goboleedka boqolaal ergaa ayaa la diyaariyey kuna ansixiyey dastuurka dowlad goboleedka waqooyi bari baarlamaanka waa la hulay guddoonkiisana waa la doortay waxaa sidoo kale si dimuqraadi ah loo doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa guulaystay shacabka waqooyi bari oo dhan waxaa guulaystay midnimadii Soomaaliya waxaa guulaystay in reer waqooyi bari ay ka baxaan dhulkooda murankii lagu muransanaa waxaan bogaadinayaa dhammaan shacabka waqooyi bari waxaan u mahadnaqayaa madaxda dawladda federaalka ah oo ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre kaalinkii wax ku oolka ahaa ee ay kaga jireen ama ka qaateen dawlad dhiskeenna iyo in maanta reer waqooyi bari ay ku naaloodaan maamul goboleed ay leeyihiin reer waqooyi bari waxaan leeyahay dad gobaynu nahay abaalkaa laynoo galay 1000 sanana waa haynana waa celinna haddii ilaahay ka dhigo waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha saaxiibkay cali yuusuf cali xoosh oo dhinacayga taagan ugu dambayntii January 17 2026 ayaa hoggaanka dowlad goboleedka waqooyi bari lagu caleema saaray magaalada madaxda maamulkaasi ee Laasacaano iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Cali Yuusuf Cali Xoosh wasiiro xildhibaano labada heer ah madaxweynaha galmudug hoggaanka dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka mid ah safiirada caalamka waqooyi bari maanta waa tusaalaha nool ee muujinaya in federaalka Soomaaliya ay tahay hannaan suurtagal ah markay iswaafaqaan rabitaanka shacabka iyo ra'yiga hannaanka qaran rabitaankii shacabka wuxuu isku beddelay hay'ado dawladeed oo dhisan dastuuri ah isla markaasina leh sharciyad buuxda waxaan hambalyo u dirayaa madaxda iyo shacabka waqooyi bari iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed maanta waa maalin taariikhi ah munaasabaddaanina waxay qayb ka tahay geedi socodkii dawlad dhiska iyo nabad dhiska dalkeena dadka Soomaaliyeed waa la isku yahay maanta priority number 1 waxa ay difaaca dalka midnimadiisa ragga odayaasha ee boqorrada ee ugaasiyada ah ee halkan fadhiya garaadada ee la hadlayo state ka inuu dhiso oo Soomaali liqdo oo aqbasho waa deyn midnimo waqooyi bari waa maamul goboleed xubin ka ah dowladda federaalka oo ka dhisan waqooyiga dalka waana tiirka midnimada ilaalinta qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan ka cadaynayaa in waqooyi bari ay tahay dowlad goboleed xubin ka ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa kale oo aan rabaa inaan ayadana halkan aan ka cadeeyo waqooyi bari in ay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin dowlad goboleedyada kale ee dalka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waqooyi bari waxay astaan u tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta madax bannaanideeda bulshadii dadnimo fiican